waa sheeko aad u qadiimi ah oo ka dhacday magaalada Accra ee dalka Hindiya. Waxaa magaaladaas deganaa nin durbaaniste ah oo ku noolaa xaafad dadka ku nool ay aad sabool u yihiin. Ninkan wuxuu deganaa buul ama cariish yar oo keligiis ku noolaa, Ilaahay mooye cid dunida saaran oo ku tiirsanaa ma jirin. Wuxuu ahaa nin daacad ah, noloshiisana la halgama. Waxa lagu yaqaanay xikmadiisa degdeg ah iyo heesaha uu qaado, taasoo ay shaqadiisuba tahay. Wuu heesi jiray, durbaankana wuu garaaci jiray. Waxay noloshiisa ku tiirsanayd heesaha iyo durbaanka uu garaaco. Hadduu heesahaas ka helo xoogaa lacag ah, wax buu ku cunaa, haddii kalena wuxuu seexdaa isagoo gaajaysan. Maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu maalintii oo dhan ku heesayay waddooyinka magaalada Accra, balse qofna lacag ma siin. Habeenkii wuxuu ku noqday buulkiisii isagoo aad u gaajaysan, isagoo waxba aanan cunin maalinkaas oo dhan. Subaxdii xigtay, mar kale ayuu aroortii hore baxay si uu u heeso una soo shaqaysto. Wuxuu mar kale maalintaas oo dhan ka dhex heesayay waddooyinka magaalada, balse nasiib daro wuxuu dib ugu laabtay gurigiisa isagoo mar kale gacmo madhan, qofna ma siin lacag ama xitaa cunto. Habeenkii markuu buulkiisii galay, gaajo darteed wuu hurdi waayey. Wuxuu isweydiinayay, fanka ama heesaha iyo muusiga ayaa ah xirfadda keliya aan leeyahay. Aniga dhab ahaantii aad baan u dadaalaa, laakiin waa maxay sababta dadka aysan u jeclayn heesahayga? Wuxuu ka fikiray in haddii dadku ay sidan ahaadaan oo aanay dhegaysan heesihiisa, uu maalmo dhow gaajo u dhiman doono. Ugu dambayn, waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad. Wuxuu yidhi, boqorka waddankeena waa mid naxariis badan oo deeqsi ah. Waa inaan beri aadaa qasrigiisa. Waxaa laga yaabaa in nasiibkaygu uu isku beddelo halkaas. Ninkii durbaanka garaacayay wuxuu habeenkii oo dhan ka fikirayay arrintaas. Markii dambe ayuu seexday, isagoo rajo ka qaba in laga yaabo in boqorka ama mid ka mid ah wasiiradiisa ay jeclaysan doonaan heestiisa, kuna abaalmariyo cunto ama wax uu noloshiisa ku maareeyo. Subaxdii dambe, isagoo rajo leh ayuu aroortii hore qaatay durbaankiisa, wuxuuna u jihaystay qasriga boqorka si uu halkaa fankiisa ugu muujiyo. Wuxuu u soo lugeeyay qasriga boqorka ilaa uu gaaray duhurkii, xilligaas oo boqorkii ku dhowaa inuu xiro shirkii uu wasiiradiisa la lahaa. Markuu durbaanistaha yimid, wuxuu u tagay askarigii ilaalada ahaa, wuxuuna ka codsaday in boqorka lagu wargeliyo in fanaan durbaanka garaaco uu joogo, diyaarna uu ahay inuu xirfadiisa soo bandhigo oo uu heeso. Askarigii ilaalada ahaa ayaa arrintii boqorka u sheegay. Nasiib wanaag, boqorka wuxuu maalintaas ku sugnaa xaalad wanaagsan, sidaas darteed wuu oggolaaday inuu heesta maqlo. Durbaanistaha wuxuu bilaabay inuu durbaanka ku garaaco iridda qasriga horteeda, iyadoo aan weli gudaha la galin. Boqorkii aad buu u jeclaystay heestiisa, wuxuuna dhegaysanayay muddo dheer, aad ayuuna uga helay. Heesta intuu dhegaysanayay, boqorkii waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad. Wuxuuna is yidhi, kuwa durbaanka garaaca sida caadiga ah waa dad madadaalo badan, jawaabta degdega ahna yaqaana. Maanta waa inaan tijaabiyaa ninkan haddii uu caqli fiican leeyahay. Markaasuu boqorkii ugu yeeray gudaha qasriga, wuxuuna ku ammaanay heestiisii, isagoo ku leh, war ninkaagan durbaanka garaaca, idinku waxaad tihiin dad qarsoon oo xirfad leh. Haddii aad sidan u wanaagsan tahay, maxaad mar hore u iman weyday? Fankaaga run ahaantii wuxuu mudan yahay abaalmarin. Markaasuu su'aal qosol wadata weydiiyey. Wuxuu yidhi, war waxaad leedahay timo badan oo dhaadheer, laakiin maxay calaacashaydu ay timo uga soo bixi waayeen? Durbaanistaha wuxuu maqlay ereyga abaalmarin oo ka soo baxay boqorka afkiisa, wuxuuna durbadiiba noqday mid faraxsan oo niyad furan. Markaas ayuu si xamaasad leh ugu jawaabay. Wuxuu boqorka ku yidhi, sayidkaygiiow, adig waxaad tahay nin deeqsi ah, mar walbana dadka ayaad wax siisaa. Waxaad wax siisaa dad aad u badan, ilaa ay timihii calaacashaada ay daateen, wax bixintaada faraha badan darteed. Boqorkii markuu maqlay jawaabtaas, aad buu u qoslay oo farxad ayuu dareemay. Markaas ayuu su'aal kale weydiiyey, haye taas waan oggolahay, timaha gacmahayga waxay u daateen waxbixinta darteed, ee adiga maxay gacmahaaga timaha uga daateen? Durbaanistaha ayaa markaas ugu jawaabay, sayidkaygiiow, fursadda aan maanta idinku soo hor istaagay saan wax u helo waa tii iigu horeysay, oo hore fursaddan oo kale uma helin. Laakiin runtii, habeen kasta riyadayda ayaan wax idinkaga qaataa. Riyo kasta waxaan idinka qaataa waxaan u baahanahay, ilaa ugu dambayn anigana timihii gacmahayga ay daateen. Boqorkii qosol buu la dhacay, aad buu ula dhacay aqliga iyo jawaabaha degdeg ah ee xigmadaysan ee ninkan. Markaas ayuu sii weydiiyey isagoo faraxsan, hadday sidaas tahay, maxaa sabab u ah in dhammaan wasiiradayda iyo dadka halkan fadhiya inay timaha gacmahooda ay daataan? Durbaanistaha ayaa markaas si degdeg ah u yidhi, sayidkaygiiow, waqti kasta ood wax siinayso qof kale, dadkani waxay la fadhiyaan rajo iyo damac, iyagoo gacmahooda isku xoqonaya, si weyn u doonaya in iyagana wax la siiyo. Sidaas darteed,
iyagana gacmahoodii ayaa timihii ka daatay. Boqorkii aad buu ula dhacay ninkan, wuxuu ku yidhi, heesahaaga, muusigaaga iyo aqligaaga degdeg ahba aad ayaan uga helay, waadan i farxad gelisay. Sidaas darteed abaalmarintii ugu weyneed ayaan ku siinayaa. Waxaan ku siinayaa hal xayawaan oo aad u weyn. Daqiiqado yar gudaheed, maroodi aad u weyn oo bur weyn la moodo ayaa loo keenay oo hortiisa la soo taagay. Laakiin ninkii ma dareemin farxad, xitaa isagoo helay xayawaan weyn oo boqortooyada siisay. Wuxuu la yaabay hadiyaddan, wuxuuna naftiisa ku yidhi, maxaa faa'iido ah haddii aan farxad been ah u muujiyo boqorka, anigoo gudaha ka dareemaya murug iyo qalbi jab. Durbaanistihii mar wuxuu eegayaa qasriga boqorka, marna wuxuu eegayaa maroodiga. Wuxuu dareemay jahwareer. Wuxuu boqorka u yimid isagoo gaajaysan oo haraadan. Niyadiisuna waxay ahayd inuu helo wax cunto ah, laakiin boqorku ma fahmin wuxuu rabo iyo baahida ka muuqata. Waa run in la siiyey abaalmarin, laakiin maxaa laga faa'iidayaa maroodi haddii uusan dabooli karin baahida caloosha? Man aha wax uu lacag ku heli karo ama naftiisa ku maarayn karo. Durbaanistaha wuxuu go'aansaday inuu maroodiga boqorka u celiyo si uu si cad ugu sheego ujeeddada dhabta ah ee uu u yimid, taasoo ahayd inuu wax cuno. Laakiin wuxuu ka cabsaday in hadduu sidaas yeelo uu boqorku xanaaqi doono. Markaas ayuu si aan ikhtiyaar lahayn maroodigii la siiyey u kaxaystay, uguna noqday gurigiisa. Markuu gurigiisii yaraa yimid, wuxuu bilaabay inuu fikiro. Wuxuu yidhi, boqorku wuxuu ila ciyaaray cayaar weyn. Waxaan ku noolahay cariishkan yar ee aan xitaa 2 qof seexan karin. Sideen maroodi weyn oo buurta la'eg ugu hayn karaa? Meel xitaa aan maroodiga ku xiro ma hayo. Markaasuu sii batay hadalkiis. Aniga xitaa cunto aan 2 waqti cuno oo aan caloosheeda ku buuxiyo ma helo. Waxaan maroodigan siiyo xageen uga heli doonaa? Xoogaa ayuu sii fikiray. Wuxuu yidhi, haddii boqorka halkii uu maroodigan weyn uu iga siiyey oo isiin lahaa 2 jawaan oo bariis ah ama xitaa xoogaa digir ah, waxaan heli lahaa cunto aan maalmo isticmaalo. Ugu yaraan si fiican baan wax u cuni lahaa maalmo kooban. Laakiin taa beddelkeed wuxuu i siiyey maroodi. Xaalka ayuu igu sii xumeeyey halkii uu iga caawin lahaa. Fikir iyo murugo ayuu isku darsaday ilaa ugu dambeyntii bilaabay inuu ooyo. Markay ilmadu ka timid, dareenka qalbigiisa wuu yara degay. Markaas ayuu si murugo leh ula hadlay maroodiga, isagoo leh, maroodiyow, boqorku qalbigayga ma fahmin. Anigana waxaan kari waayey inaan u sheego xaaladayda, laakiin adiga waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego waxa qalbigayga ka buuxa. Ninkan isagu balonsan yahay, sidee buu cid kale waddada ugu tilmaami karaa? Anigu xitaa waxaanu cuno ma haysto. Marka adiga xagee baan kaaga soo heli karaa cunto aad ku noolaato? Laakiin hadda adigu waa inaad geesinimo muujisaa. Waxa keliyaan haysto waa durbaan. Waxaan ku siinayaa durbaankaas sida aniga oo kale. Adigana waa tumaysaa durbaanka saad cunto uga hesho. Haddaad lacag ka hesho ku cuntay, cabitaan ku cab, halkaad doontana seexo. Laakiin fadlan culays ha igu noqon. Intaas markuu yiri, wuxuu galay buulkiisii, wuxuuna soo qaaday durbaankii weynaa. Wuxuu durbaanka ku xirxiray qoorta maroodiga, wuxuuna sidoo kale qoorta u suray kiish lacagta loogu rido. Markaas ayuu maroodigii la tagay suuqa. Markuu suuqa tagay, wuxuu maroodiga ku yiri, haye maroodi, Ilaahay ha kula jiro. Hadda iska shaqayso oo cunto raadso, magaaladana ku soo wareeg. Waxaa la og yahay in maroodiyada ay caado u leeyihiin inay dhegahooda hadba dhinac u ruxaan. Markuu maroodigii bilaabay inuu dhegihiisa ruxo, dheguhu waxay garaaceen durbaankii, taasoo sababtay in cod xooggan ka yeero. Markii dadka suuqa joogay ay maqleen dhawaqa durbaanka oo maroodiga tumaya, aad bay ula yaabeen, waxayna bilaabeen inay qoslaan oo farxaan. Markaasay bilaabeen inay lacag ku ridaan kiishkii durbaanka hoos yaalay. Maroodigii hore ayuu u socday isagoo dhegihiisa ay tumayaan durbaanka. Dadkoo faraxsan way daba socdeen, iyagoo aad ula dhacay arrintan la yaabka leh. Waxaa suuqa joogay dad badan oo maroodiga iyo muusigga la yaaban. Dadkuna marba marka ka dambaysa way sii badanayeen. Markaas ayaa mid ka mid ah basaasiintii boqorka arkay dhacdadan. Isagoo aad u yaaban ayuu si degdeg ah ugu laabtay qasriga boqorka. Wuxuuna ku yiri, boqorow, sheeko la yaab leh ayaa dhacday. Durbaanistihii aad maroodiga siisay wuxuu maroodiga ka dhigay fanaan isaga oo kale ah. Wuxuuna tumayaa durbaan isagoo waddooyinka magaalada dhex wareegaya. Boqorku wuxuu la yaabay arrintaas. Boqorku si degdeg ah ayuu banaanka ugu soo baxay si uu u arko. Wuxuu arkay in maroodigii weynaa si degan u socdo, isagoo durbaan ku garaacaya dhegihiisa. Dad badanna ay daba socdaan say u daawadaan. Waa dhacdo la yaab leh, dadkuna aad bay ugu faraxsanaayeen. Boqorkii markiiba wuxuu u diray askari si uu ninka durbaanka garaaca u keeno. Markii la keenay, boqorku wuxuu yiri, shaki kuma jiro inaad tahay fanaan weyn. Sida aad habeen keliya fanaan uga dhigtay xayawaankan weyn waa wax lala yaabo. Waxaan arkayaa in hadda si fiican uu u tumayo durbaanka,
laakiin su'aasha aan qabo waxay tahay maxaad xayawaankan weyn ee khatarta ah ugu daynaysaa suuqa dhexdiisa haddii qof dhaawaco ama dilo yaa mas'uul ka noqonaya. Durbaanistihii isagoo aan ka baqayn ayuu si cad ugu jawaabay, wuxuu yidhi, mudane boqorow, runtii arrintan ma ahan fanaanimo ee waa baahi. Waxaan u imid qasrigaaga anigoo gaajaysan waxay tahay rajo aan ka qabay in la i caawin doono. Aad baan uga mahadcelinayaa inaad qiimaysay heesahayga oo aad igu abaalmarisay maroodigan weyn, laakiin waxaad i siisay xayawaan weyn, laakiin ma hayo meel aan geeyo ama cunto aan siiyo. Haddii aad iga waraysan lahayd baahidayda dhabta ah, waan kuu sheegi lahaa, waxaadan isiin lahayd waxaan u baahanahay, ha noqoto raashin aan cuno, hoy aan seexdo ama ku noolaado, ama shaqo aan noloshayda ku maareeyo. Qofkaan haysan wax uu cuno, sidee buu u ilaalin karaa xayawaan weyn sida maroodigan oo kale? Ninkan durbaanka garaaca ayaa wax uu cuno ka heli jiray durbaan garaacista, marmar wuxuu heli jiray lacag uu wax ku cuno, marmarna waxba ma heli jirin. Markii maroodiga durbaanka qoorta loogu xiray, wuxuu durbaanistaha yidhi, walaal, fadlan culays ha igu noqon, adiga raadso waxaad cunto iyo meel aad seexato. Markii boqorkii maqlay qisada dhibka iyo murugada leh ee ninkan, wuu gartay qaladka uu galay. Wuxuu amar ku bixiyey in durbaanka laga saaro qoorta maroodiga oo maroodiga si degdeg ah loo geeyo meesha xayawaanka lagu qoodiyo ee boqortooyada ku taala. Boqorkii wuxuu sidoo kale amar ku bixiyey in durbaanistaha la siiyo raashin badan, guri weynna loo dhiso, lacag badan oo ku filan oo si fiican noloshiisa ugu maareeyana la siiyo. Asxaabta, sidee bay idinla muuqatay qisadan? Fikradiina ku reeba kommentiga. Ha iloobin inaad subscribe saarto kanaalka. Aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka.